magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer waxa laga xusay 8 May oo ku beegan 156 guurada ka soo wareegtay aasaaska ururka bisha cas ee adduunka. Haddaba munaasabad loogu dabaaldegayo maalintani oo ka qabsantay xarunta bisha cas ee Burco ayaa sidoo kale shahaadooyin lagu guddoonsiiyay 80 arday oo xaruntani bisha cas ka dhamaystay caafimaadka iyo gargaarka degdega ah. madashani oo ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo suduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Aadan Malaay, gudoomiyaha bisha cas ee gobolka Togdheer Xaaji Cabdi Cawil, abwaano, ardayda xarunta bisha cas, macallimiin iyo marti sharaf kale ayaa waxa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay hay'addan bisha cas iyo hawlaha ay bulshada u qabato. Gudoomiyaha hay'adda bisha cas ee gobolka Togdheer Cabdi Cawil maanta waxa weeyaan maanta la yiraahdo 8 May waa maalinta la aasaasay ee qolada la yiraahdo Laanqayrta Cas iyo Bilaha Cas oo loo gasay inay yihiin waxa laga maarmaynin adduunku. Si kastaba ha ahaatee waxa weeyaan maalintii 500 guuradii la aasaasay Laanqayrta Cas iyo Bilaha Cas iyo qolada federationka oo idinku ay idinku si kale u taqaaniin oo ayaguna ah maalintii la aasaasay ayaguna ah 100 guuradii ay marayaan sanadkii 100 guuradii bay marayaan 100 sano ka hor yaa la aasaasay oo ururada Laanqayrta Cas iyo waxaas ay midoobeen oo laga dhigay mid qura oo isku hadafa oo isku sharciya 190 wadan ee maanta ka furan yihiin oo adduunka 190 dawladood ama wadan meelood bay ka furan yihiin. taasuna waxa weeyaan wax ballaaran oo adduunka ku leeyihiin ay yihiin garan kartaan. waxay leeyihiin malyan 12 malyan iyo 700 oo kun oo volunteer-ga idinku ku aasa ka mid tihiin. haddaad dhalinyarada imaka noo bulaatiin malyan 12 malyan iyo 700 oo volunteer ay oo adduunka ku taasan koryaashiisa yaa ka mid tihiin. waxa kaloo ay leeyihiin ururkana imaka aynu sheegaynaa 450 kun oo shaqaala oo adduunyada koryaashiisa ku maqan ama ku ka shaqeeya oo meelaha adduunka oo dhan ku kulabsan. waxay sanadkii sabalgareeyaan oo ay wax siiyaan geesta kale waxaa iyaguna munaasabadani ka hadlay suduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Aadan Malaay iyo sidoo kale abwaan hurro walanwal oo ku dheeraaday kaalinta bisha cas ee ugu jirto bulshada. bisha cas ilaa intaan garanaya bisha cas waa joogtay intaan arday wax baraysay waqti walba waan arkaa oo qalin jabin bay ku jirtay. waxay la tii laga dheeray bisha cas soo maaha. bisha cas shaqooyinka ku darto shaqooyinka waxbarashada shaqooyinka ku darto. haddana wasaaradda caafimaadka nahay bisha cas waxaynu ugu jirtaa hormuudka ugu horeeya ee wasaaradda caafimaadka. hadday tahay emergency-ga ama aafooyinka markay wax dhacaan waa hay'adda qura ee nugu gurmadka nugu horeysa. waxaynu xasuusannaa sanadkii abaarta dhacday shubankii nagu dhacay haddaan bisha casi jirin gobolka Togdheer wax badan baa ka xumaan lahaa. ugu dambeyn barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo madashani ka hadlay ayaa bogaadiyay hay'adda bisha cas iyo sidoo kale ardaydani dhamaysatay tababarka caafimaad. waxa weeyaan kadikii laga gelayay caafimaadka waxa la keysay bandhigii ay loo soo bandhigeen ardaydu. waxaan oran karaa waaba inta ugu badan ee dadku ay u dhintaanba. waxa ugu horeeya waxqabadka ugu horeeya waaba inta ugu badan ee dadka halis gelin karta. ma aha macnaheedu runtii aqoon yar ma aha. waxaan jecelahay inay sii kororsadaan oo waxa weeyaan aqoontooda caafimaad ee ay barteen inay sii kororsadaan sidii suduwaha caafimaadku sheegay si ay u buuxiyaan kaalmo badan oo caafimaad oo gobolka Togdheer uu baahan yahay iyo qarankeeduba.
arkayseen sida maaragtay degdegsiyaa leh ee ay uga hawlgalayeen ee ay ugu qabanayeen gargaar degdega dadkii waxyeeladu gaadhay waxaan ognahay doorka ay kaga jirto bisha cas ee gobolka togdheer bulshada kaalintii kaga jirto waxqabadkii iyo kaalintii firfircooneyd iyo gurmadkii ay ka samaysay waqtigii ugu dambeeyey ee xanuunkii shubanka ahaa ee aafada ahaa uu gobolkeena ka dhacay gudoomiye xamse maxamed cabdi ayaa guddoonsiiyey ardaydani ka dhammaysatay caafimaadka xarunta bisha cas shahaadooyin iyada oo sidoo kalena ardaydu madashani ku soo bandhigeen riwaayad ka turjumaysa muhiimadda caafimaadka iyo kaalinta hay-adda bisha cas ugu jirto bulshada waa fahmi kaysa xarsi bulsha TV burco